Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee sheekadii ninkii ugu hantida badnaa Baabila. Waa riyo aad u qurux badan dhabtii, balse sidee riyada sidan dhan u quruxda badan u keentay in weli sidii taaladii aad meel istaagan tahay. Koobi ayaa sidaa ku warceliyay. Waxa aan markii aan toosay ee aan garawsaday marnaanshaha boorsadayda galay dareen kacdoon ah iyo u qaadan waa. Bal aynu isla eegno labadeena iyo nolosheena sida ay tahay. Badmaaxyada ayaa yiraahda isku dooni ayaan saarannahay. Hadda labadeenu bal aynu doonidan nolosheena isla qaadaan dhigno. Caruurnimadeennii isku meel ayaan wax ka baran jirnay. Markii aan dhalinyarada ahayna rayraynta ayaan wada qaybsan jirnay. Haddii aynu weynaanay markasta dad iska agdhow oo jaal ah ayaynu wada ahayn. Waxa aanu ku qanacsanaanay in saacado aad u tiro badan shaqayno. Haddana waxa aan shaqaynayno si dhib yari ah inooga wada baxaan. Shilinbireedyo aad u tiro badan ayaa ina soo galay sanadihii la soo dhaafay. Sidaas oo ay tahayna rayraynta hantiilanimadu waa wax aynu riyo kali ah ku ognahay. Bal eeg oo iduhu maxaynu ka duwannahay. Waxa aynu ku noolnahay magaalada ifka ugu hantida badan. Dadka socdaalka ah ayaan markasta ka maqalnaa ayaga oo oranaya meel la hanti ah ama u hanti dhow Baabila haba yaraatee ma jirto. Hanti ayaa astaan u ah magaaladan. Haddana aniga iyo adiga waa aynu ka qatannahay. Kala bar noloshaadii oo aad shaqo dhabar jab ah ku soo jirtay ayaad maanta ka faro maran tahay oo aad aniga i weydiisanaysaa 2 shilin bireed ah oo aad la maqnaatid ilaa iida. Maxaa aan ku iraahdaa? Ma ku dhahaa hoo waatan boorsadaydii ee kala bax waxa ku jira oo dhan. Maya, taasi ma awoodo oo aniguba adiga ayaan kula mid ahay oo boorsadaydu waa ay maran tahay. Maxaa ina haysta? Maxaynu u awoodin in aan helno dahab iyo lacag aan ku iibsan karno cunto iyo dhar inta aan rabno. Bal ilmaheena dib u eeg, miyaysan qaadi doonin raadkeena? Miyaan caruurteena kuwa ay dhalaan iyo kuwa ay sii dhalaanba u baahnayn in ay dahab iyo lacag yeeshaan? Mise waxa ay ku gowracan yihiin in sideena oo kale ay nolol adag ku jiraan? Koobi ayaa yiri, jaalkaygow, weligay adiga oo sidaan u hadlaya ma aanan arag. Bansar ayaa yiri, weligay sidaas oo kale uma aanan fikirin. Ilaa iyo saaka inta isoo martay ayaa keenaysa in aan sidaas u fikiro. Weligay waxaan ku dhabar jabaa in aan sameeyo karneeto kuwa ugu tayada fiican, aniga oo aan filanayo in maalin uun boqorada iyo dadka aan u sameeyo garowsan doonaan howlkarnimadayda, kadibna aan abaalgud ku heli doono. Maalintaas ma aha mid weligeed la arkay. Ugu dambeyntii hadda waxa aan ogsoonahay in aysan maalintaasi weligeed dhici doonin. Sidaasi darteed waan murugaysanahay. Waxaan rabi lahaa in aan ahay nin qiimo leh. Waxa aan jeclaan lahaa in aan xoolo iyo beero yeesho, in dhar kuwa ugu wanaagsan iyo shilinbireedyo aan yeesho. Waxa aan diyaar u ahay in aan qabto wax walba oo sidaasi aan doonayo aan ku heli karayo. Waxa aan filayay in aan abaalgudka bedelkiisa aan helo, balse ma dhacdo marnaba. Xagee la inaga haystaa? Aan mar labaad ku weydiiyey, maxaa inoo diiday in aan barwaaqada iyo dahabka hantiilayaashu haystaan aan annaguna qayb ka leenahay? Koobi ayaa yiri, ma aniga ayaa kaaga warcelin kara weydiintaadaas? Koobi ayaa hadalkiisa sii watay, aniguba ma aniga ayaaba wax ku dhaama. Dhaqaalaha isoo gala dhaqso ayuu ku dhammaadaa. Mar kasta waa in aan qorsheeyo oo aan ka walwalo in aan qoyskayga baahi ku seexan. Haddana sidaas oo ay tahay waxaa qalbigayga ku weyn sidii aan ku gadan lahaa kaban ka weyn midka aan haysto, si aan dhawaaq kan ka sii fiican kan hadda aan sameeyo aan u helo. Haddii aan heli lahaa kabankaasi weyn, waxa aan samayn lahaa codad aan weligiis boqorku maqlin. Mansir ayaa yiri, waad u qalantaa inaad kabankaasi heshid. Ma jirto cid Baabila ku nool oo kaa cod macaanaan ama kaa hees wanaagsanaan lahayd. Waxaa hubaal ah in boqortooyada dhami codkaaga aad uga bogaan, balse sidee ku heli kartaa kabankaas haddii labadeenuba aynu nahay saboolo sida addoommada oo kale ah? Bal shanqartaasi dhegayso, waa kuwan. Waxa uu farta ku fiiqayaa safaf dhaadheer oo wada addoommo feero qaawan ah, kuwaasi oo dhididaya, mid kastana uu sido haan biyood weynaatay. Waa 5 saf oo ishareer socda, mid kasta uu culays dartii la soo gudmay. Eeg ninkaasi xooga ka muuqdo ee hor socda. Koobi ayaa tilmaamaya horjoogaha addoommadu ay daba socdaan, balse asagu wax culays ah aan wadin.
waa madax dhulkiisii jooga dheh. Mansir ayaa yidhi, rag badan oo xoog la eg ninkaasi ayaa safka ku dhex jira. Isagoo hadalkiisa sii wata, Mansir ayaa yidhi, rag badan oo caddaan, madow, gaduud, jaadad walba leh ayaa safafka ku wada jira oo addoommo ah dhammaantood maalinta oo dhan. Sidaas ayay hore iyo gadaal ku dhinac dhaafayaan, ayaga oo sidaas u raran. Weligood sidaas ayay ku jirayaan, ayaga oo aan wax madax bannaani ah iyo raynrayn midba aanan haysanin. Sariiro ay ku seexdaan ma helaan, cunto macaanna lama siiyo. Waa xayawaano masaakiin ah. Waa aan ka naxsanahay aniguba. Waxaa ii muuqata in aad i tusaysid in aad ka yara nolol fiican tahay kuwaasi oo aynu dad madax bannaan isugu yeerno. Waa runtaa Koobiyow, waa wax laga diirnaxo. Sidaas oo ay tahay, innaguna ma doonayno sanadka kan ka dambeeya gaarno anaga oo nolosha adag ku jirna. Waa aan shaqaynaa oo haddana shaqaynaa, haddana meel ma gaarayno. Miyaa aysan habboonaan lahayn in aynu raadinno sida dadka kale dahabka ku helaan? Koobi ayaa weydiiyey. Waa runtaa, waa hubaal in aynu ogaanayno sirta ku jirta haddii aynu raadinno kuwa og. Mansir ayaa ku warceliyey. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa sheekadii qaybtii labaad ee ninka ugu hantida badan Baabila. waad ku mahadsantahay daawashadaada. haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.